jirkooda ayay beddelayaan. waxay raadinayaan farxad, waxay raadinayaan qurux. waa dhacdo la yaab leh adigoo rabbigaagii kugu abuuray suuradtii ugu wanaagsaneed. maxaa kugu kalifay in aad raadiso qurux aan waxba ka jirin, kiimiko aan caafimaadkaba u fiicneen? ogow, quruxda laguu sheegayo waa quruxda alle subxaanahu wa tacaala kugu abuuray. haddaba dumarka iscaddeeyey oo ku sirmay in caddaantu ay qurux tahay, misena kalarkii madow u fahmay ceeb iyo wax xun inuu yahay, walaashaydiyey allah ka cabso oo jidhkaada midabkiisii ilaali. ogow, qurux waa tii rabbigaagii kugu abuuray. sidee ugu kalsoonaan weyday quruxdii rabbigaagii ku siiyey, misena aad uga doorbiday kiimiko xun? ma isweydiisay su'aashaas? waxay raadinayaan in uu makhluuqa raalli ka noqdo, oo waxay ilaaween in khaaliqii ka caroonayo. subxaana allah. ukhtii fillaah, ficiladan xunxun haddaad ku dhex jirto fadlan ka toobadkeen. intaad nooshahay ayaad jaanis haysataa. akhii fillaah, hadday walaashaadu waxaasi isticmaasho, ka zuuli guriga adigoo ka duulaayo xadiidka xabiibkeena sala allahu calayhi wasallam ee ahaa, qofkii idinka mid ahaa oo arka munkarka ha ku zuuliyo gacantiisa, hadduusan awoodin carabkiisa, hadduusan awoodin qalbiga. arrinkaas ayaa ah iimaanka meesha ugu daciifsaneed. walaalayaal, diinteenna awaamirteeda aan u hoggaansanno. guri kasta ha lagu dhaqo shareecada islaamka. markaasi ayaan gaari karnaa horumar adduun iyo mid aakhiraba.